heestaasi waxay 76 suuqa bakaaraha bartigiisii ku soo baxday niyow sideeda anoo inta habeen iska soo qayray dhalinyaraha oo meelaha iska marmaraya ayaan waxaan arkay dayr yar oo xaabo ka samaysan oo jilicsan oo aan qof qarin karin waraa sataara gadaashiisa qof taagan oo aan markii hore isri mageedba show inaan timaha feeranaysa oo shanlaysanaysa ayaa beesha taagan markaan u dareemay inay qof tahay illana taagan tahay yaan waxaan isee ula hadashaa waa u soo dhawaaday dayrkii baan caasha ku soo qabtay waxaan idhi walaal nin guuleed la yidhaaho oo askariya meelahan xaafadiinna ah ma degan yahay markaasi tiyaa maxaa tiri soo dhawow wejigaaga i tus shil baa dhacay dayax iyaa soo baxaya nin joogi aan dhammayn weli oo jeegadayda ku aadanoo dhinaca bari baan ka sii jeedaa anugu xagganaan u sii jeedaa wejigaaga inaan arkaan rabaabay tiri meeshii baan soo galay waa u imid darin fidsan bay ku dhex taagan tahay waa shanlaysanaysaa waxaan idhi waa ikan si fiican bay ii egta waxay tiri maxaad rabtay ninkaasaan doonaya meelahan u degan yahay mana jiro ninku ma jiro wax jira maaha ee hadalku si uu ku furmaan rabay marka waxay tiri ninku ma degana anna wejigaaga itus waxaan kugu lahaa habeen hore heblaay bay tiri gabadh yar bay u yarto 9 jira aniga gabadhaas oo guriga joogna ayaa niman loo yimaadeen 2 nin baa noo timid wayna warwaraysteen hooyadiin xaggee jirtaa xaggan iyo xaggan marka habeenkii bay inta nagu soo gudeen bay wax alla waxay dhar iyo dahab aan haysanay qaateen bay tiyo tuug bay ahaayeen marka sidii oo kale inaad tahay iyo in kale ayaan kaa hubinayay bay tiri naama ahiyo anigu gurigu shil ku dhacay baan kusoo beednay markaasaan isu cadeeyey waxaan ninkaasaan hayo magacaas markaas tii waa ku aqaanaa iskuullada ku dhigtay waa soo fariisi halkii baan haasaawiya sheeko ka bilowna ilaa waagu ka beriyo waa sheekaysanayay guriga dayrkiisa aan fadhiyay ilaa quurasa markaas waxaan ku yidhi beri galab xaafadaasaan degan waa isu dhownahay gurigaasaan deganahay soo mar galabtii bay ii timid anoo fadhiya heestii qoran baan u dhiibay sheekadu siday xala u dhacday iyo heestii aan ka sameeyey marka 76 bay ahayd saasay ku soo baxday iyaduna waa ogahay in la bedbedelay in cid kale xataa la siiyado kuwayd iyo degan xaggaas oo qolo kale lagu sheegay laakiin sidaanay ahay xalay gelin dhexaadkii maraan mayrac guuraha sheedda guriga faaladay oon himilo gaar iyo dayaxoon galsho lahayn ilayskiisa galadacay sida goonidaaq cawlgaaf meeray socodkii oo guud haldhaa iyo mililacay gob weynoo midba gooni laamaha rucub mira'a gunudo gadgadoonka raamuhu dhexda dari garaara leh hadba geesu leecaan oon weli gar eexaad lagu naqin guntiiso godi nabar u yeeshiya gacan cadow ku dhicinoo xididkiisa gaarani dayrtoo gidaadiyo gulla waaye anagoo gondaha rayska kula jira gabadha jirkeedii baa tilmaamaya markaa oon weli gar eexaad lagu naqin guntiiso godi nabar u yeeshiya gacan cadow ku dhicinoo xididkiisa gaarani dayrtoo gidaadiyo gulla waaye anagoo gondaha rayska kula jira oo hoos galbeedka iyo halka gelinku bixiyaa naacaw gaara leeyahay oon halaq galeen iyo inna godad lahayn oo gardhada iyo caleemaha aanay haadu guri karin oo meel gabaad iyo saba guri ku yaalloon leexa isgalaashiyo ufa gara makiciyi iyo dabaylaha gilgilayaa manka aanay goon karin bal caleemaha iyo iska daalaanaha geedka ufa kasta hadday timaado laamaha manka aysan goyn karin geedkaas ayaan arkay baan idhi yaab kale kalgacayli galay iyo gocashada xasuustiyo haybadayla gudubto naxariis indhuhu godol baalashii isgeliyeen ayaa gadafkan muuqaa geed iiga dhigayee ileen araggu waa gabadh
mase garanaya talo waxaan geedka u qabaa waa qof dumar ah mase garanayo maxaan yeelaa waa isweydiiyey guurtiyaa u mari lahaa hawshaas goob xaarashada yaa isagoon gafina sugay garta keligii niqilaa ma odayaal baan ugu yeelaa mase waan la hadlaa macnaha ilbiriqsiga aragtida iyo hadalka bilowgiisa qof ma ay meeshii iska taagnaan karo waa dariiq iyo guriga dayrkiisii inta yaree maskaxdu hawsha ay qabanaysa degdega ah ayaa meesha ka muuqda naftu gogatay laabtee googaalo badana gudbi weyday saantu iyo magod baa horteeda ah inaan bilaash u dhaafo qoftii aan arkay waa suuragal la'aan inaan laba mid soo galo soo ilama gudboonaan geesi waaye aragii danti kama gadoomee soo ardaaga gurigii gaashaan kamaan dhigan soo erayo googo-an goonibaar kumaan oran guuleed ma jooga waa goonibaare maaha wax jira haa guntanaha sarbeebta ah sow ma aanay garanoo kaftan dhiirigelin iyo googgaa ma odhanoo sheekadiigama gurin haa guuleed baa doonaysa sow maaha guuleed waa la oo gudasho xeel iyo gaari camaladeedii gogol ima soo dhigin iyadoo garatay inaana guuleed doonaynin haasaawo doonayay gogol ay soo dhigtay wey haasaawo guud oo gardaadsaday jacayl iyo soo barasho gaar oo aanu libin ka gaarnaa goobtaa kamau dhalan haahda laxawgaa guntamay iyo faraxa ka soo go'ay qalbigii gurnaayee irmaanaaday galabtow qalbi guran baan sitado markaas 76 bay ahaydoo 6 bilood baan xalana ku soo jiro shaqaalihii xalana inta la geliyay degta nawda lagu hayay baa lahaa markaasaan inkastoo aniga xoogaa la ii sadburun jiray oo mar fasax la siin jiray oo askarta meelaha darajada leh yaan gabiyow baa haystay in la oran jiray war gabiyow maanta oo meesha isku baran marka maalmaal buu fasax siin jiray sharci shumaqlow oo soo dhuumo oo ii kaale hadhow aniga inta kuwa kale ay ku qabsanay laxawgaa guntamay iyo faraxa ka soo go'ay qalbigii gurnaayee irmaanaaday galabtow gacmo furan dhankayga daalageedaheedii danhi aan ka guray iyo guntimooyin ubaxoo xariir lagu galeeyaan idiin geliyey qoortee waayo waxaasan u gelinayaa xariirta iyo dahab ubax waa faraxaygii iyo laxawgaygii dareenkaygii baan waxaan u gelinayaa farax si uu usii qaado gabadha ugu sii geeyo maaha dad gacmo furan dhankayga daalageedaheedii danhi aan ka guray iyo guntimooyin ubaxoo xariir lagu galeeyaan idiin geliyey qoortee deeqa calaweeye gobaad waxaad u dhiibtaan boholyo aan qof ii gelin intii aan ku noolaa gobaad marka maaha gabadha magaceedii ee waa magac suugaaneed aan iyada siiyey gundhigii xishoodkay ayadana hadda markii baa lala hadlaya gundhigii xishoodkay adiguna garaad badanee maanku kaama guuree murti aan la goohiyo gunna weeye keligaa gabdha aad ka mudatee geestaydan caashaqa ka godladay hagaagixin ka godladay hagaagixiney ka godladay waxaa qaada xasan aadan cabdikariin jiirna codku sameeye wataa ku qoran marka taasina saasay ahaydoo dareenkii iyo laxawgii baan adeegsadee inay farax geeyaan iyo ubax oo gabadha siiyaan